bishii August ee sanadkii 2001 waxaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isugu yimid shir salaadinta Soomaaliland tiro badan oo kamid ah shirkaasi ayaa gabagabadiisii waxa uu ka soo baxay go'aano iyagoo la baxay markaasi amaba sheegay inay doonayaan abuurida golaha Soomaaliland ee salaadinta taas waxay ka cadeysay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Allah uu naxariistay madaxweynihii xilligaasi ee Soomaaliland khilaaf weyn oo cirkaas ku shareeray ayaa arintani ka dhashay arintan oo in badan la hadal hayay waqtigaasi amaba ahayd sheekada qura ee taagneed waxa markaasi ay ku sigataba in marar badan nabadgelyadu ay faraha ka baxdo iyada oo iska hor imaadiyo iyo rabshado badanna iyo mudaharaado xidhiidha ay ka dhaceen magaalada Hargeysa iyo Burco labadaba taasi oo ku wajahnad amaba daba taagneed sheekadaasi iyada haddaba salaadintu markay magaalada Burco sidaasi ay ugu shireen ee halkaasi ay go'aanadana ka soo saareen ayaa markii dambe madaxweynaha Soomaaliland Allah uu naxariistay Cigaal waxa uu sheegay inuu qayb kamida salaadintaasi uu ku marti qaaday Hargeysa isagoo dhowr goor uu fuud isaga daba diray salaadintaas iyagu waxay ku adkeysanayeen in dhamaantoodba la wada marti qaado hadii kale aanay markaasi imanaynin si kastaba ha ahaatee waa ay yimaadeen markii ay yimaadeen waa la isku qabsaday oo isku qabsi ayaa dhacay bal aynu eegno haddaba maalintaasi salaadintu ay Hargeysa yimaadeen iyo imaanshahoodii Hargeysa wixii ka dhacay barnaamij habeenka telefishinka ka diyaariyay hadii aanu yara milicsano waxa uu haasadan boqorka iyo salaadiinta Burco maanta soo gaaray magaalada Hargeysa iyo soo dhaweyn lagaga hortagay aw barkhadle waftigan oo ka koobnaa Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali Suldaan Maxamuud Guuleed Mire Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani iyo Boqor Maxamuud Cabdi Carab ama Boqor Maxamuud Cali Carab waxa ay saaka 7:00 subaxnimo ka soo kicimeen magaalada Burco waxana ay sheegeen in si fiican loogu soo socotay halkaasi abaara 10:00 subaxnimo ayaa waxa aanu booqanay dooxa aw barkhadle ka shisheeya halkaasi oo ay ku sugnaayeen in ka badan 45 gaari oo halkaasi ku sugnaa kuna sugayay sultaanta salaadinta iyo boqorka Burco waxana gawaadhidaasi ay ahaayeen kuwa ay wateen ama ay la socdeen dhinaca mucaaradka hadii ay ahaan lahaayeen suldaamada iyo dib u habeynta SNM iyo guud ahaanba qaybta mucaaradka oo iyagu maanta soo dhaweyntii ugu ballaarnayd halkaasi iyagu lahaa markii haddaba ay soo gaareen halkaasi ee ay booqdeen salaana ay salaameen dadkii halkaasi ku sugayay ayaa waxa kamid ahaa dadkii soo dhaweynta halkaasi uu joogay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Awcali iyo mucaarad tiro badan oo iyagu halkaasi ku sugnaa waxa kale oo kamid ahaa suldaamada halkaasi iyaguna soo dhaweynta ka qayb qaadanayay Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh iyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir iyo mucaarad aad u tiro badan oo iyagu halkaasi ugu diyaar garoobay soo dhaweynta salaadinta iyo boqorka Burco dilaamida loo haystay gaari waliba ugu socday xawsare ka dhex baxay gaariga salaadinta iyo boqorku ay saarayeen oo gaariga cad ee Mustubishka geed ka baxsan wadada ayuu hoos tagay waxaana mar qura soo wada degay mas'uuliyiinta dhinaca xukuumadda iyo kuwii dhinaca mucaaradka loo tag la wada hadal geedka hoostiisa lagu buuq waxa arintaasi ay noqotay aflagaadeyn gaareen amaba gacan halka lagu guglay ama lagu marti qaadayo salaadinta iyo boqorku waa mid kamida guryaha salaadinta magaalada Hargeysa ama suldaanada magaalada Hargeysa deegaankooda ah dhinaca kale mas'uuliyiinta dawladuna sida ay sheegayeen iyaguna meel kale ayay u jiidayeen halkaasi haddaba waxaanu ku gaarnay ama aanu la haleelnay in aanu wax ka weydiino Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani
baabuurteenu waa meesha ka dhacay meedaan idinku ikhtiyaar lahayn cid raacaysan iyo laba guri magaalada laga kala gudbay marka gurigeetiisa ikhtiyaar ma aha waa soo dhaweyntii baa buuq ka dhacaya hay magaalada lafteeda sultan magaalada lafteeda hay waxa jira in laba guri leedin kala gudbay wadiga haweenka namari haddaba inkasta oo daawadayaal ka cudur daaranayno codka su'aasha oo aydan si wacan u maqlahayn sawaxanka iyo buuqa ka dhacaya darteed waxa haddana halkii ka sii sare ee nin walba gaadhigiisa la miciinsaday halka gaadhiga salaadiinta iyo boqorka sida uu abbaaro dhinaca bari ee magaaladan Hargeysa la soo gaaray ayaa waxa halkaasi ka dhacay is-afgaranwaa aad u qalafsanaa dhinac kastaba ha ka timaato arrintu laakiin waxa jiray in la kala baxay halkaana uu ka dhacay gacanka hadal markii afku xumaaday waxaana halkaasi gacanta isula tagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo mudane ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland Cali Sheekh Doon iyo Cabdi Cali Mahdi salaadida faraaka qaada kaasi waxa ahaa barnaamijkii aanu habeenkaasi idinka diyaarnay oon balqadarkaasi xusuusta ah aanu idinka soo qabanay iyadoo oo salaadintu ay ka yimaadeen markii salaadintaasi way degeen ayaa xukuumadduna ay halkaasi ku weerartay xilligaasi oo hareeraha ay markaasi ka xidhay inkastoo guriga gudihiisa aanay gelin waxaana halkaasi ka dhacay ismaandhaafyo haddaba markii dhowr habeen ay joogeen ayaa waxaa xukuumaddu ay fulisay howlgal arrintaasi kullid ahaa markii saynu sheegnay ay dhowr casho joogeen dhinaca koonfuriyada magaalada salaad hore rasaasta ayaa isqabsatay waxaa la maqlayay waxaan fara badan dadkuna dhegta ayaa taagnaatay kamaradaha telefishinka ayaa subaxnimadii halkaasi ku kalahay waxay arkeen in goobta howlgal ballaaran ka dhacay waxyaabihii isha aanu ku qabanay waxaa ka mid ahaa gaadhi ay ciidanku leeyihiin oo meel jira ka laalaaday oo markaasi dadku ay ku urursanaayeen amaba ay ku xunsanaayeen waxaana naloo sheegay inuu ahaa gaari ka mida gaadiidkii ciidanka oo howlgalka sameynayay waxaa kaloo naloo sheegay in salaadiin dhowra habeenkaasi la xirxiday oo 4 suldaan ka koobnaa salaadintaasi la xirxiday oo ahaa kuwii dhinaca burco ka yimi waxa kale oo intii howlgalladaasi salaada hore dhacay ay socdeen ku waxyeeloobay dhowr guri oo rasaasii dhacay ay dhinacyo ka dalooliyeen amaba ay ka dumiyeen waxaa kale oo iyana intii howlgalkaasi uu socday ku waxyeeloobay dad dhowr ah oo rasaastaasu ay ku dhacday haddaba bal guriga ay salaadiintu markaasi ku jireen ayaa isagana aanu galay anagoo markaa bal wax ka weydiinay arrintoodan dhibta keentay ee iyaga iyo xukuumadda dhex taallay boqor maxamuud cali carab ayaa markaasi aanu ka warsanay wixii aad nooga baahataan ee warana diyaar baanu idinla nahay haddii aan in yar idiin kor maro waxyaalihii ugu dambeeyey annagu gobolka togdheer baanu ka nimi 4 suldaan iyo aniga ayaa ka nimi warqad martiqaad madaxweynuhu uu soo diray oo uu noo soo gudbiyey baanu ku nimi 4tayadaas meesha joognay ee warqadda ku qornaa waxay ahayd golahan salaadiinta guddoomiyihii guud afhayeenkii guud wax kasta
oo nala soo xidhiidha waa wixii golaha khuseynayay wey maadaama madaxii guud uu meesha iyaduna burcana xaruntii ay tahay loo aqoonsaday inay u tahay saldanadda ay xarun ay u tahay fadhi inay u tahay loo aqoonsaday warqadaasaanu ku soo ambabaxnay waanu u sheegnay wakiiladii dawladda ee noo imanayey ama nala joogay waanu u sheegnay inaanu aqbal casuumadoodaga soo dhoweynay ee wadahadalkaa balse aanu la tashanayno salaadiintii kaleete ee golaha shirkaa ka qayb gashay ee wax ka soo saartay inaanu wadatashi ula kulmanno saasaanu ku soo ambabaxnay xaqiiqatan hargeysa markii aan owbarkhad la soo gaadhnay si fiican baa shacbiyaddu noogu soo dhoweysay aada iyo aada si diran oo xiisaheeda laana loogu soo dhoweeyey waanan uga mahad celinaynaa halleeyo kontaroolka markaan soo gaadhayna cutubye dawladda ayaan ugu nimi oo wasiira runtii markiiba waxaa noo muuqday aragti baa noo muuqatay maxaa yeelay soo dhoweyntu waa caadi cutubyo ciidan baa noo muuqday iyo gaadiid ciidan oo boolis baa noo muuqday wixii markii laga soo dareeray qas iyo rabshad dhacayna waa la wadoogaa runtii aniga markaasay ii caddaatay wixii aanu u soconnay inaynan hargeyso oolin oo waxa hargeyso yaalla ay yihiin dil iyo xabsi bayna yaallaan markaasay ii caddaatay tallaabooyinkii halkaa laga qaaday bay iigu muuqatay xaqiiqadii waanu isu nimi qoladii booramaan aan u yeedhnay iyaguna waa yimaadeen si fiican oo nabadgelyolay ku yimaadeen fadhiga iyagii ugu horreeyey ee casuumaddaas dawladdu ay fidisay sidii loo qaabili lahaa ayaanu yeelannay shalay iyo daraadba shalay daraadna waxaanu go'aansannay fadhiga iyagii in somalilan aynan u baahnayn qas iyo burbur iyo cid eed laga saara inayn u baahnayn cid eed laga saaraa hadday jirayso cidda soo baxda ha noqoto innagu haddaynu saldaradnahay awoodda aynu leenahay ee dadku inoo caleema saaray waxa weeye waa nabadgelyo iyo xasilooni taasaanu isku gacan saaray ku go'aansannay in nabadgelyo wadahadal wax allaale wixii khilaaf jiray wadahadal in lagu dhammaystiro waad ogsoonaydeen beryihii dhaweyto baarlamaanka wixii ka socday waad ogsoonaydeen go'aanadii ka soo gudbay waad ogsoonaydeen sidaynu kala xidhxidhannahay ee kooxa taas waa ku hebel iyo waa ku hebel iyo waa ku hebel loo leeyahay war waxaas waxaan wax ku noqon karaa iyadoo la isu furfuro oo marba maamulkii joogana la gacan siiyo nabadgelyo wixii khilaafka joogana lagu dhammaystiro iyo wadahadal sidaasaa go-aankayga noqday shalaytana aanu ku gebagabaysanay wixii wadahadalku siduu u dhici lahaa iyo qodobadii wadahadalka iyo waxaan aragti annaku masaalix xumadeed u arkanay ayaanu ku dhammaysanay waxaa berber socday dagaal saxaafadeed oo ilaa maalinta shirkaa la qabtay xubnaha dawladdu hadday wasiirra yihiin iyo hadday maayirra yihiin iyo hadday maxkamada yihiin giddi ay wadeen baa socday oo berber socday waxaa dhegyaan loo jalaqsiin waa fidma abuur baanu arkanay wixii aanu annaku ku nimi wixii aan go'aansannay wixii aanu u gudbinay jaraa'idka intaasay ahayd wixii ilaa xalay dhacayna waa waxaad idinkuba markhaati ka tihiin oo ka fog oo ka foolxumo badan wixii ay taliskii horeetay qoriga loo qaatay ay wadi jireen wax ka xun ayaa magaalada xalayta ka dhacay maato guryahoodii lagu weeraro rasaas guri gudihii inta la galo ciyaal iyo maatay huruddo oo aan loo aaba yeelin waxay doontay ku dhacdo rasaas suuqa laga furo ciddii ay doonto dhaawac iyo khasaare iyo waxay doontaba gaadhay guryaha oo si xoogle loo dumiyo oo lagu dumiyey gaadiid dabada albaabada loogu xidhayo iyo gaadiid gidaarka loogu dhufanayo intaba ay suuragal noqotay madaxdii dhaqanka ayaad ogsoon tihiin oo iyaguna la xidhxidhay waxyaalaha ilaa xalayta dhacay
sabab la'aan hanjabaaddii oo ficiliyan isu rogtay weeye hanjabaaddii intaa dawladda ka socotay oo ficiliyan isu rogtay weeye madaxdaa dhaqanka lagu xidhxidhay xalayto shantaa nin ee hadda inta aanu naloo sheegay guryahoodii lagala baxay dee xogogaal baa ka tihiin dee sida wax u dhaceen waa sidaas wixii kaleeto weydiin dee ana waynu la weydiinaysaan wixii aan jaraadka u gudbinayna waa ku qoran yihiinoo dee cid walba way aragtaa golahan saldanadeed golo cid ictiraaf loo weydiinaya maa waa golo daa'iman soo jiray haddana jiri doona haddii ilaahay uu ina gaadhsiiyo dawladda ictiraaf golahanaa siiya maaha dawladdu golahan ictiraaf iyadu ma siiso dawladda golahanaa ictiraaf siiya waa ilaa iyo markii uu soo jiray xayaatada kaasina muuse bixi ayuu ahaa waxaa maalmahaasi ahayd mid aad iyo aad indhaha loogu hayay gurigaasi salaadintu ay ku jireen oo xukuumadduna ay dulgeysay ciidan adag oo ay ka mid yihiin taangiyo iyo tignika kale halkaasi oo ahayd meel xero militarin u dhow oo inkastoo gurigaa gudihiisa aanan gelin haddana guryo kale salaadinta qaar ku jiray ay ka qabatay sida halkan aanu idinka soo gudbinay waana 2001dii bishii August oo ahayd xurguftii ismaandhaafkii dhex maray dawladda Soomaaliland ee waqtigaasi iyo salaadintii shirka ku qabatay magaalada Burco ee markii dambe dhinaca Hargeysa u soo wareegtay dad badan oo kala duwan ayaan arintaasi kala kulanay waqtigaasi oo ka hadlay waxa ka mid ahaa gudoomiyihii golaha guurtida ee hore geeriyooday Allah naxariistay Sheekh Ibrahim الله ساعتها ما فيليا كل يا برعو الله ساعتها ما فيليا وحكى ساق وقوتي وحوي أنا وهذا الجوسنا وحنا إذا علنا أنا بتقليده وحنا بتقليده أسيبه قل ما موكل مركب وحنا لنا أنا ولا بتقليده يعني أنا أردنا ولا قلنا ما أنت قلك تبقى إحنا قلنا أفر ساعة talabadan xilxilista xalayto ilaa afarta suldaan lagu xidhay xukuumaddu mowqifka goormay qaadatay Sheekh Ibrahim daan xukuumadii bay horta aan guursi baan kawle laakiin xukuumaddu waa inay qaadato talaabo hadii ay wax dhacaan marka iyada qaadato talaabo doqsi qaadato warmaayo ka goliin ku taageersan waa ku taageersan hadii wixii nabadgelyo xamaanaya iminka waxaa socday in xal dhaqdhaqaaq lagaga hadlayo waan marka waantaasi حق سيدي وصعونيسا وانت ما waxa weeyaan in nimankii si nabadgelyo loo soo xidho lagu xidho mise in arrin kaba nabadgelyo lagu dhameeyo si kale loo rogo waxa weeyaan arintaasi si alla sidii aan waan ku helayno ayaan galay hada xal noqoto hadii waan kala noqoto hadii waa hadal noqoto anigu waxaan diidanahay in xabad dhacdo طبعا xabadina xal way dhacdo tood dambeeyay dhacdana ma rabo iminka halkan diyaar garow baan uga muuqday in tigniga wasaaradda gaashaandhigga difaacu ay soo ururiyeen iyo kaarayaal marka taa lafteedu miyaanay xaaladda si in arbusheenoon laga qaadanayn dareen kulul waxa maraata ayuu hadii xoojin samaystaan waxba ma laha oo ceeb ma laha laakiin waxaan ilaalinaynaa inay xabad dhacdo in dawladda xabad ridana ma rabno koon wax ridana ma rabno meesha waxaan doonaynaa in gacan lagu qabto maxaan ku leeyahay nabadgelyo عبد الله حسين إيمان عبد الله الدراول ayaa isaguna isla maalmahaasi arrinkaasi ka hadlay way ka tashatay macquul weyn oo weedi marnaba in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa dee xaafada ummadda dhani ay degantay in la yiraahdo weerar lagu qaado dawladda lagu qaado laakiin culays waa la sameeyay waa la culays dee waa la saaray laakiin marnaba ma dhicin go'aan la yiraahdo go'aankaas lagu dhaqaajiyo maca waxa meesha ku jira la jiiro la soo qabto wax runtii dee mamnuucay bay ahayd oo lagu qanci waayay in meesha noocaas oo kala ee waxa soo maatii joogto in maxaa la yiraahdaa ay dee wax la dagaal laga rido amba laga dhaco dawladuna iminka kuma la tala jirto mana filayno inay naga soo baxayso in la yiraahdo dagaal hal lagu qaado oo xaafadda dhan la weeraro laakiin waxa jira dad doonaya dagaalku inuu meesha ka dhaco
oo inamada yaryara meesha jooga habeenkii u yimaada oo yidhaahda annaga rag idiin hayna ee bahasha bilaaba uun idinku ma yahayn hargeysa oo keliya laakiin magaalada burco ayaa lafteeda arrintan dareen weyni uu ka dhashay waxaa ka dhacay hargeysa iyo burcaba mudaharaado qaarkoodna lagu taageersan yahay arrintaas salaadinta xadhigooda qaarna lagaga soo horjeedo taasi oo macnaheedu yahay in labada dhinacba lagu kala taageersanaa magaalada burco ayaa waxaa ka dhacay mudaharaad lagu diidanaa xadhigga salaadiinta oo gaadiid tiro badan sida idin muuqataa magaalada lagu dhex maray iyada oo markii dambena la isugu yimi bartamaha magaalada burco halkaasi oo hadallo ay ka jeediyeen xubno mucaaradka ka tirsanaa iyo weliba dad kale oo halkaasi isugu yimi iyo abwaaniin waxaa balaynu soo qaadan doona haddana halkaasi uu ka yidhi maxamed ibraahim warsame adraawi laba kelmadood mudaharaadka dhacay iyo xamaasadda iyo dagaalka iyo bariirka aan qarsoodiga ahayn aynu ku xoojinno laba kelmadood oo dadka dareenkiisa ah oo xoojiya ujeeddada maanta loo soo bannaan baxay ma garanayo dawlad lala dagaalamayo wax dawlad la yidhaahdo iyo nidaam dhisan oo lala dagaalamayaa ma jiree nin cigaal la yidhaahdo aynu ismaqallo eeg nin cigaal la yidhaahdo oo gurigiisa maqsinkiisa hurdada ku maxbuusa weeyaan ninka aynu maanta u jeednaa rugihii shacabka iyo tiirarkii ummaddu lahayd iyo danaha ummaddu ma aha nidaam ku dhisa shacabka iyo danaha shacabka kuma taagna tiirar ummaddu leedahay iyo danaha ay ummaddu leeyihiine udub xargalay ayuu ku taagan yahay waxaaba oran lahaa dagaalkeenna intalaaba ku filan maantee dardarteenna aynu dib u dhiganno kaasi waxau ahaa mudaharaadkii salaadiinta lagu taageersanaa xukuumaddana lagaga soo horjeeday burco ka dhacay hadraawi ayaanu ahaa ninka aad arkayseen waxaa garab socday mudaharaado kale kuwaasi liddu kuwe ah oo dabcan nidaamna ogaada waxaana idinla hadli doonaa duqii caasimadda oo kelmayda odhan doona waxaan se idinku waaninaya waxaan walaalayaal idinku waaninayaa waxaynu haysanaa wax ciyaar ku yimid maaha waa idinkaarkayatiina garaacaysay kii oo kalea la doonayaa inay timaado adduunkii bayna soo galay mu'aamaraadkii bayna soo galay lacagtii cartayna soo gashay caqligoodii bayna soo galay hadaan idinkana waxaan idinku wareejinayaa duqa caasimadda bismillaahi raxmaan raxiim waxa murugada ay gelinayaana waxa weeye wixii laydin baday ee ilaahay idinka abaalguday waxa haddana lagaga jawaabayo waxaan idiin sheegayaa mar walba inaynu noqonno maaha sida xumbada marna karta marna daqiiqana ku baaba'ana dalkan markii
soo bilaabo xorriyaddii khasaarihii naga soo gaadhay kii dambe oo aan la qiyaasi karin dacroortiinan yaryar baa loo soo wada dhintay oo loo soo dagaalamay nin walbana cimrigiisii wixii ugu qurux badnay waxay ku tagtay inuu xoraynta dalka ama tii hore dagaalamay oo abaalkiisu ma ahayka waa aayad qur'aana odayaal markii laga dareeray xarunta khayryada ama fagaaraha khayryada ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ardayda dugsiyada iyo dadkii kale ee la socday ay socdeer ku soo mareen wadada weyn ee bartamaha magaalada Hargeysa marta inta u dhaxaysa khayryada ilaa xarunta madaxtooyada halkaas oo ay socod dheer ay ku mareen iyagoo barnaamijkaasina ay ku taageerayeen xukuumadda Soomaaliland iyo mowqifkeeda ay ka qaadatay arrinta salaadiinta sidoo arkayseena khayryada magaalada Hargeysa ay halkaasi kala hadleen xubno ka tirsan xukuumadda oo uu ka mid yahay duqa caasimadda Hargeysa Cawl Cilmi Cabdalle iyo gudoomiyaha udub ee gobolka waxaad moodaa qadiyadu inay ku socoto sidii ilaahay ugu talagalay 40 sano baa laga cunay carruurta inay yaro gabgableeya oo gabgableeyo ama wuxuu doona ahaada oo gees kale u jeediya socon maayo xaqaa taagan Soomaaliland ha noolaato ha noolaato ha noolaato ha noolaato la soo dhaafay ee aynu ku guda jirnay ma koobi karno xurguftaasi xilligaasi taagneed ee xagga siyaasadda oo aad iyo aad dareen weyn uga qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba dadka reer Soomaaliland meel ay joogaanba waxay ahayd midii laga soo gudbay balse aynu xusuusta taariikhda iyo waayihiina soo maray iyo dharaaraha kala duwanaa iyo maalin walba waayaheedii aynu qayb ka mid halkan kaga soo qaadanay dadka ka hadlay way fara badnaayeen weerarada iyo weerar calisku ma ay yareen sidoo kale waxaa aad u badnaa hadallada laga yidhi meel kastaba ha noqotee waxaa jiray guddiyo dhexdhexaadina oo culimmada iyo ganacsatada ka mid ahaa oo isaga dab qaadayay xukuumadda iyo qolyaha salaadiinta ahayd oo iyana halkan aynan ku soo koobi karin waxaa kale oo jiray bayaano meelo kala duwan ka soo baxayay oo ay ka mid ahaayeen meelahay ka soo baxayaan golihii wakiilada oo baal amaba dhambaal aad u kulul arrintaasi iyana ka soo saaray guurtidaa ka hadashay dadka kale siyaasiyiinta ayaa ka hadlay culimada ayaa ka hadashay dadka ganacsatada ayaa ka hadlay aad ayaa hadalhayntu ay u badnayd iyada oo markaasi dhexdhexaadintuna ay ahayd mid kolba lagu kala kacayay oo laisku afkaran waayay hasaatee dib haddana laisugu soo nuganayay iyadoo gabagabadiina arrintaas ay noqotay mid aakhirkii soo aftirantay balse markii ay socotay ee arrintu ay kululeed aynu eegna bal madaxweynihii xilligaasi allah u naxariistee ee ay salaadintaasi isku hayeen xagga siyaasadda maxamed xaaji ibraahim cigaal oo si ballaaran uga hadlay taalafteeda rag ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaan aanu lahaynba isku hayeen xagga siyaasadda maxamed xaaji ibraahim cigaal oo si ballaaran uga hadlay taalafteeda rag ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaan aanu lahaynba suldaanka reerka ay ka socdaan isagoo suldaan lahayn ayuu ku fadhiyaa meesha suldaan wakiil suldaan ciduu ka soo wakiil yahay lama sheego waxaa kaloo jira ogtigni laba iyo toban nin oo kuwii maxay soo jireenka ahay salaadiintii dalka ayaa iyaguna balaaq soo saaray iyagoo qori soomaysa nimanka halka joogaay ayaa soo saaray oo nin waliba dhintooda badan ay ku tirsanayso suldaan hebel suldaan hebel suldaan hebel saddex qaar afar ay ku tirsanayaan oo raggii soo jireen tahay ayaa soo saaray iyana balaaq arrinka ka soo horjeeda la-aantood koox yar oo kale oo maxay sheegata ah ma ay samayn karto maxay haydee urur dhaqameed madax dhaqameed ma ay samayn karto haddayna koox baanu nahay madax dhaqameeda
oo iyagu urur samaysanaya anagu ictiraafna ogama baahna waxa weeye ma dimuqraadiyad xoraba ayaa jirta laakiin waxaan ahayn baad sheegi karay haddaan tidaaho anaa ra'yigayga dhiibanaya wax ku diidi karaa ma jiro laakiin haddaad tidaaho dagaal baan u hadlayaa ra'yigii dagaal baan anigu bixinaya ya xaq uma jiray soo maaha xaq uma jiro marka taleesku hayaa waxa weeye yaad u tahay madax dhaqameed haddii guurka la iskaga qaado oo la yidhaha madax dhaqameed baan ururkii madax dhaqameed dee markaa inta ka maqani weliba soo jireenkii madax dhaqameedyada laga taxaday mase marka anigu waxaan ra'yi mabda'aya buu yahay ma ra'yiga iyo mid loo dhan yahay waa mid loo dhan yahay waa taa yani marka loo dhan yahay يعني تصدق هذا هو أورو كثلاثين iyo ama ubash wuxuu samaysan karaa marka loo dhigto dadka magaca sheegtaa u dhanyihiin laakiin intii kale haddii ay in yar doonayso inay samaysato dee waa inay kooxda ku sheegaan qof iskuma sheegi karaa masalan maxay leeyihin dadka loo hadlaya waa sida axsaabtoo kale xusbila anigaa kulli soomaaliland oo dhan wada hadlama jira korba dadka intii doorata ee voodkeeda ayuu u hadlaa xisbigaas u hadlaya waayahay ka afraad hawsha salaadiintu dee si aynu ku naqinay dhaqankeenna iyo maxay hayde curfigeenna iyo maxay hayde nolosheenna aynu ku naqinay abnololeedkeenna aynu ku naqinay oo si ballaaran uga hadlay taa lafteeda rag ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaan aanu lahaynba suldaanka reerka ay ka socdaan isagoo suldaan lahayn ayuu ku fadhiyaa meesha suldaan wakiil suldaan ciddo ka wakiil yahay lama sheego waxaa kaloo jira ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaan aanu lahaynba suldaanka reerka ay ka socdaan isagoo suldaan lahayn ayuu ku fadhiyaa meesha suldaan wakiil suldaan ciddo ka wakiil yahay lama sheego waxaa kaloo jira ogtigni saddex laba iyo toban nin oo kuwii maxay soo jireenka ahay salaadiintii daba ayaa iyaguna balaa soo saaray iyagoo kuli soomaysa nimanka halka joogaay ayaa soo saaray oo nin waliba dhintooda badan ay ku tirsanayso suldaan hebel suldaan hebel suldaan hebel saddex qaar afar ay ku tirsanayaan oo raggii soo jireenta ahay ayaa soo saaray iyana balaa arrinka ka soo horjeeda la-aantood koox yar oo kale oo maxay sheegata ah ma ay samayn karto maxay hayde urur dhaqameed madax dhaqameed ma ay samayn karto haddayna koox baanu nahay madax dhaqameeda oo iyagu urur samaysanaya anagu ictiraafna ogama baahna waxa weeye ma dimuqraadiyad xoraba ayaa jirta laakiin waxaan ahayn baad sheegi karay haddaan tidaaho anaa ra'yigayga dhiibanaya wax ku diidi karaa ma jiro laakiin haddaad tidaaho dagaal baan u hadlayaa ra'yigii dagaal baan anigu bixinaya ya xaq uma jiray soo maaha xaq uma jiro marka taleesku hayaa waxa weeye yaad u tahay madax dhaqameed haddii guurka la iskaga qaado oo la yidhaha madax dhaqameed baan ururkii madax dhaqameed dee markaa inta ka maqani weliba soo jireenkii madax dhaqameedyada laga taxaday mase marka anigu waxaan ra'yi mabda'aya buu yahay ma ra'yiga iyo mid loo dhan yahay waa mid loo dhan yahay waa taa yani marka loo dhan yahay yani waxaa saddexaad waxa weeye ururka salaadiin iyo ama ubash wuxuu samaysan karaa marka loo dhigto dadka magaca sheegtaa u dhan yihiin laakiin intii kale haddii ay in yar doonayso inay samaysato dee waa inay kooxda ku sheegaan qof iskuma sheegi karaa masalan maxay leeyihin dadka loo hadlaya waa sida axsaabtoo kale xusbila anigaa kulli soomaaliland oo dhan wada hadlama jira korba dadka intii doorata ee voodkeeda ayuu u hadlaa xisbigaas u hadlaya waayahay ka afraad hawsha salaadiintu dee si aynu ku naqinay dhaqankeenna iyo maxay hayde curfigeenna iyo maxay hayde nolosheenna aynu ku naqinay abnololeedkeenna aynu ku naqinay waxa weeye waxay ku kooban tahay hawshaas salaadiintaas sidii ay beerihii ay suldaanka u ahaayeen dantooda iyo nabadooda iyo wixii cid kale ay kala gaadha sidii ay ugu talin lahaayeen taladeeda ay u maamuli lahaayeen arrinkooda ayay leeyihiin ayay maxay hayde
كشنات وحوية قوان في شركيب أي لحد لما فورك كل القرين وين الباب يا مرت عشر وباب هاي الانتخاب كان يستدعي وقت شربيات على الصغير كان يلقى النقطة وهاك كاسنا وحوها الله نحرسته محمد حج إبراهيم عقال